kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo xilligan oo kale aad ka daawataan TV-ga Universal anigoo Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa barnaamijka idiin soo jeedinaya qodobada aan caawa intiisa badan barnaamijka kaga hadli doonana waxay noqon doonaan shirka looga hadlayo ammaanka Soomaaliya ee maanta Muqdisho ka furmay hadaladii laga jeediyay iyo falanqayn ku saabsan guud ahaan waxa laga filan kara shirkaasi ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan qaybaha dambana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dilka madaxweynihii hore ee waddanka Yemen Cali Cabdalla Saalax muqdisho maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo ammaanka Soomaaliya kaasi oo socon doona muddo 2 cisho ah qorshuhuna uu yahay in maalinta beri la soo gabagabeeyo shirkan waxaa ka qayb galaya madaxda Soomaaliya iyo xubno beesha caalamka ka kala socda gaar ahaan wadamada daneeya Soomaaliya waxaana diiradda lagu saarayaa arrimaha ammaanka ee waddanka Soomaaliya iyadoo ajandayaasha ugu waaweyn ee shirkan ay ka mid yihiin sidii loo heli lahaa ciidamo Soomaaliyeed oo ammaanka waddanka kala wareega kuwa midowga Afrika AMISOM ee gaaraya 22,000 oo askari waxaa sidoo kale ka mid ah sidii loo tayeyn lahaa ciidamada Soomaalida si ay u gaaraan xaalad ay la wareegi karaan ammaanka dalka iyadoo sidoo kale ay qodobadu ka mid ahaayeen in bal dib loo eego waxyaabihii laga qabtay ammaanka dalka wixii ka dambeeyay shirkii May ee sanadkan ka dhacay London waxaa shirkan furay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana uu sheegay madaxweynuhu in ay barteen baahiyaha ay qabaan ciidamada Soomaalida iyo sida ugu habboon ay tahay in loo dhiso ciidamo xoog leh oo Soomaaliya ay leedahay partners who support our security forces notably the police and national army and thank individually and I therefore insecurity was stemmed from poor governance and the near 4th-century civil war that ravaged the nation, its people, institutions, and resources. Most devastating was the painful loss of our people who are now scattered across the globe. The impact of Somalia's national collapse and the rise of Al-Shabaab's violent insurgencies and terrorism have enormously weakened both our security and that of the region as a whole. The enduring victims of this instability and lack of security remain the Somali people. Today, our government will spearhead progressive reforms, including in the security sector. Despite the challenges and setbacks, we Somalis are vibrant and resilient people full of hope and high expectations. We will continue our rise. madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay guud ahaan arrimaha ku xeeran ammaanka dalka caqabadaha waddanka ka jira oo ay ugu muhiimsan yihiin dagaalka ay dawladdu kula jirto Al-Shabaab iyo dhibaatooyinka sidoo kale haysta hay'adaha dawladda kuwaasi oo uu sheegay in ay u baahan yihiin dib u dhis xoog leh dadkii halkaasi ka hadlay waxaa sidoo kale ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyada waxaana qaarkood ay sheegeen in xilligan aanay suuragal ahayn in ciidamada AMISOM ay waddanka ka baxaan ciidamadii la wareegi lahaa ammaankana aanay weli diyaar ahayn waxaa ka mid ahaa xubnahaasi madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxayna dhammaantood isla qireen in loo baahan yahay howlgal degdeg ah oo shabaab lagula dagaalamo howlgal midaysan oo AMISOM ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado taasoo fududeyn karaysa in la wiiqo ka bacdina Soomaalidu ay ku filaan karto
inay hawshaas wax ka qabato oo ay sii dabagasho taa daraaddeed labadaa fikir ee fikirka iyo howlgal midaysan haddaan la helin maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaanan joogayna arrimaha laga hadhadla maalmahan oo amisom iyo dhimitaankeeda iyo in waqtiga amisom laga bilaabo sanadkan hadda aan ku jirno wax laga dhimayo waxay la tahay tusaale waxaa inoogu filan ciidan meel ka baxaya wuxuu u baahan yahay meesha uu ka baxayo sidii uu ugu yimid si ka xun inuuna kaga tegin waxa uu kaga tegaya waxay noqonaysaa inuu sidii si ka fiican uga tago taa daraaddeed macnuhu wuxuu noqonayaa in loo diyaargaroobo oo la sameeyo diyaargaroob marka laga baxayo sababta looga baxayo iyo cidday ku wareejinayaan in la helo ha la soo dedejiyo inay ka baxdo amisom ha la dedejiyo in ciidan soomaaliyeed la wareego laakiin asbaabtu maxay noqonaysaa kow amisom iyo international bartnerka ama donorska wax bixinaya waxaa looga baahan yahay in la soo geliyo ciidan ka badan kuwa hadda jooga oo amisoma oo loo sameeyo roadmap ama khaarido ay ku howlgeli karaan muddo xadidan muddadaasna hal dagaaloo isku xidhiirsan waddanka lagu wada qaadi karayo taasina ay keeni karayso inay fududaato in cadowga la burburiyo intaa gudaheedana la sameeyo in la abuuro ciidan soomaaliyeed oo tayo leh oo cadowga uu la dagaalamayo ka awood roon ee una noqonin jabhad looga tegayo waxaan is leeyahay haddii arrintaa la fuliyo waa suurtagal amisom iyo ciidankeedu inuu baxo iyo in la dhimo sababta amisom madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayuu kaasi ahaa iyadoo oo sidoo kale ay halkaasi ka hadleen dhammaan madaxda maamul goboleedyada oo uu ka mid yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweynaha Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir intaba haddaba dib ayaan ugu laaban doonaa hadaladii ay jeediyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlay hase yeeshee haddii aan guda galno dhinaca isla arrimahan shirkan ku saabsan waxaa barnaamijka igala qaybgelaya Jibriil oo Maxamed oo jooga Mareykanka waxna ka dhiga jaamacadda Ohio waxaa sidoo kale qadka telefoonka ee Muqdisho ku jira Xuseen Macalin Maxamuud oo soo noqday la taliyihii amniga ee madaxweynaha isla markaana aad ula socda arrimahan ammaanka dalka ee laga hadlayo labadiina waan ku soo dhaweynayaa barnaamijka dabagalka waxaan ka hormarayaa Xuseen dabcan aad baad ula socotay oo ilaa qabanqaabadii shirkan waad ka warhaysay bal marka hore faahfaahin naga sii ahmiyadda uu shirkan u leeyahay ammaanka dalka iyo sidii uu ku yimid intaba هلا حسين هلو هلو وايه حسين waan kusoo laaban doonaa waxaan aadi doonaa jibriil haddii aad maqli karto qadka skype-ka ayuu mararka ugu jiraa bal ahmiyadda guud ee shirkan iyo sidii uu ku yimid intaba faahfaahin inaga sii marka hore bismillahi raxmaan raxiim cabdulaahi waa mahadsantahay adiga iyo soosaarayaasha iyo university TV shirkan wuxuu daba socdaa shirkii London lagu qabtay bishii May 2017 oo beesha caalamka inta Soomaaliya danaysa iyo dowladda federaalka ay maamul goboleedyadu isugu tageen si looga wada hadlo arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya gaar ahaan arrintan waxay daba socotaa arrinta amniga oo sida la og yahay waxaa ciidamada amisom ee dalka Soomaaliya joogeen muddo 10 sano ah 10 sano oo la diilayay oo beesha caalamka qarashkooda bixinaysay kadib waxaa yimid dhibaatooyin ah in caalamkii runtii ka sii jeesto arrimaha Soomaaliya oo ku daalo waxaa timid in Europe oo European Union oo lacagta ugu badan bixin jiray boqolkiiba 20 jareen lacagta la siin jiray sanadkii dhawaa waxaa timid Brexit iyo Ingiriiska ka baxay Europe oo ayaduna saameyn ku yeelan doonta qarashka la siin doona Amazon waxaa loo baahday marka in Soomaaliya ay la wareegto amnigeeda oo ay dhisato hay'adaheedii dawliga ahaa marka dawladda Soomaaliya qorshe ayay geysay shirkii London oo saaxiibkii Xuseen uu ka mid ahaa dadkii qorshahaas wax ka diyaariyay qorshahaas waxaa la dhahaa National Security Architecture ama nidaamka amniga qaranka oo lagu nidaaminayo lagu dhisay ciidamadii booliiska iyo ciidamadii militariga marka waxaa ka soo baxay shirkii London wax la yiraahdo Somalia Security Pact caalamka iyo Soomaaliya heshiis ay galeen
oo ku saabsan ammaanka iyo sidii Soomaaliya loogu dhisi lahaa ciidamo tayo leh oo midaysan oo heer qaran ah. Heshiiskaas wuxuu lahaa xilliyo iyo muddooyin loo qabtay. Heshiis waxaa lagu ballamay in bishii Oktoobar la isku soo noqdo oo la qiimeeyo xaaladdu meeshay marayso. Hadda la isu yimid qiimeyntaas ayaana la sameynayaa. Waxa xiga oo la sameyn doono iyo tallaabooyinka la qaadi doono si looga miro dhaliyo maaragtay qorshayaashii hore ayaana la isugu imanayaa hadda. way xuseen ayaan aadaya xuseen haddii aad maqli karto bal ahamiyadda guud ee shirkan iyo sidii uu ku yimid ogaanta maadaama aad ula socotay arrimahan. waa mahadsan tahay runtii jibriil ayaan uga hormaray oo maaragtay sida iyo fikiisa waana shirkii ayuu ahaa oo waxay ahayd in soo kaco hadda ayuu dhacay laga lahaa wuxuu ahaa in idadii ka soo baxday London oo ahayd heshiis ay galeen dowladda Soomaaliya iyo caalamka oo sanaa sidii taageeri lahaa ay leedahay oo ku mudsan iyo samo inta iyo madii ay ka wareegi lahaayeen masjidka Soomaaliya. nasiib darro waxaa inuu noqdo conference to loogu qaaraamayo oo qaaraan lagu imaanayo oo maaragtay si taariikh ku dhacsan sano Soomaaliya laakiin dibdhac yimid waxay keenay dowladda Soomaaliya oo aanan qodkiisi ugu tagtay aanan fulin ay howlo kaleeto siyaasadeed iyo maaragtay dowlad xagga amniga uu dhacay ayuu maanta December soo gaaray. maanta oo Decemberna weli ma aysan siyaasad oo qodkiina ma dhamaystirayn lana soo lacagay oo waxaa kusuu ahaa in lasoo lacageeyo si markaas caalamku ayeen taageeradii marka maanta maanta xag caalamka waxay madaxgeyn maadaama ballantii la qabtay. waxaan filayaa marka shirka soo socda oo nu marayn doono 6 bilood inuu dhici doono in aan waktiga ka faa'iidaysano oo qorshihii iyo lacageyntiisiiba lala yimaado. waaya waa kugu soo laaban doona xuseen. dabcan arrinta xoogga leh laga hadlayo waxay tahay in la helo ciidamo Soomaaliyeed oo ammaanka kala wareega kuwa AMISOM. waxaana shirkaasi qorshayaashiisa ama qodobadiisa ugu muhiimsan ku jiray in 2018 ba meeshii lagu gaaro ay ciidamada AMISOM bilaabaan inay tartiib uga baxaan dabcan Soomaaliya. inta aan su'aashaasi aadin waxa kaloo qayb ka ahayd waxyaabihii lagu heshiiyey shirkii London in 6 bilood kadib ama muddadaasi 6 bilood ah laga soo bilaabo June la sameeyo habkii loo dhaqangelin lahaa ama loo hirgelin lahaa heshiiskii ay gaareen dowladda dhexe ee maamul goboleedyada oo ay ugu muhiimsanaayeen bal in la dhiso 18,000 ee askari ee loo kala qaybiyey ciidamada kala duwan ee dowladda. markaad eegto Jibriil waqtigaasi ilaa hadda waxyaabihii lagu ballamay maxaa ka qabsoomay ogaanta? waxay ahayd sida uu u sheegay Xuseen in la keeno qorshe diyaarsan lana qabto howlo wax ku ool ah oo laga hortago caalamka maanta marka la shirayo. runtii waxaa jira gaabis aad u fara badan oo maaragtay duruufta ama dalka ku jira ha ahaato ama dowladdii oo iyada lafteeda weli aan aad u caga dhiganin oo cusub ha ahaato. waxyaabo aad u fara badani runtii kama qabsoomin sidii la rabay, horumar looma samaynin. waad ogsoon tahay macnaha madaxdii hay-adaha amniga guud ahaan isbedelo aad u fara badan oo maaragtay aan shacabka Soomaaliyeed loo sharaxin waxay ku salaysan yihiin xataa ayaa ku dhacay. wasiir gaashaandhig ma jiro haddadaasaan hadlayno, hadda waa la magacaabay laakiin ma jiro kaliyihii nabad sugidda
taliyii booliiska waa tii beri dhaweyd la saaray marka isbedello aad u fara badan oo aysan u dul qaadan karin Soomaaliya oo runtii wax qabad la'aan iyo wax kala midna aan ku salaysnayn baa socday dadkii diyaarin lahaa waxan marka dadka isbedel ku dhacay ahaayeen waxaa marka hadda la isugu imanayaa kulley in kow AMISOM dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka sidii loo taageeri lahaa inay sii joogto laga wada shaqeeyo waxaa la isugu imaanayaa in laga wada hadlo bal beesha caalamku inay sidoo kale diyaariso qaab dowladda Soomaaliya lagu taageero dhanka amniga hadda lama samayn doono yabo oo qorsho wuxuu ahaa in hadda la sameeyo 6 bilood kadib markii shirka London laga soo wareego in la yabo hol lacagtii Soomaaliya ciidankeeda lagu dhisi lahaa oo caalamku sida u taageeri lahaa iyo qarashku ku taageeri lahaa intuu la egyahay la isla gaaro laakiin maadaama nidaamkii lagu maamuli lahaa wixii lacag oo la helo meeshii la marin lahaa cidii maamuli lahayd musuq la'aan sidii waxaan loo meelayn lahaa aan weli la isla meel dhigin waxay un hadda noqon doontaa in maaragtay laga wada hadla arrimahaas sida aan ilo xog ogaal ka helayana waxaa kasoo bixi doona in la samayn doono guddi wada jir ah ama hay'ad wada jir ah oo dowladda federaalka iyo banka adduunka iyo qaramada midoobay iyo beesha caalamka ay maaragtay ku qorsheyn doonaan sidii Soomaaliya looga kaabi lahaa dhanka dhismaha ciidamada guud ahaan shirkii London marka qodobadii ka soo baxay iyo waqtiyeynteedii in AMISOM kunka askari ugu horeysay ee bishan hadda aan ku jirnay December dhamaadkeedaba ay la baxaan wixii ka dambeeyana ciidamada Soomaaliya si tartiib ay ugu wareejiyaan baa qorsho ahaa kulley way sheegan doonaan Muqdisho goob ku taalaan ku wareejinay iyo waxyaabo la mid ah oo kale laakiin wax weyn oo ka qabsoomay wixii qorsho ahaana ma jiraan waana waxaan loo baahan yahay dowladda Soomaaliya maxay tahay Jibriil maxay u qabsoomi waayeen aragtidaad runtii waxyaabaha la qabsoomi waayeen waxaa ka mid ah waxaan waxay u baahan yihiin khibrad waxay u baahan yihiin aqoon waxay u baahan yihiin dhaqaale dal muddo 27 sano ah burbursanaa oo lagu xiray shuruudo ah adinku waxaan soo fuliya marka hore weeyaan dalkii marka waxaan lagu mashquulsan yahay siyaasaddaas maalinlaha ah iyo maxaa socda maanta maxaa dhacay iyo yaa qiiliyay yaa hadlay runtii in la fusto oo qorshe la sameeyo lama samaynin waxa kaliya oo aan oran karno waa un la hirgeliyey waa National Security Council-ka ama guddiga amniga qaranka oo maamulka lagu soo daray oo dhowr jeer kulmay laakiin wax kale oo macno leh oo la qabtay ma jiro waay Xuseen dabcan waxyaabahan aad baad ula socotay waxna waad ka diyaarisay wixii lagu ballamay shirkii London maxaa ka qabsoomay maxaase la qaban waayay sababtu maxay tahay waa maasan tahay horta walaalow si guud waxaad leedahay dadka Soomaalida ah iyo dowladeennaba waxaan waqtiga iyo inuu socdo ayaanba waxaan leeyahay inaysan aad ka warhaynin oo hawl ku taala oo muddaysan oo muddadii aad adigu go-aanka wax ka gaartay oo aad adoo miyir qaba go-aanka gaartay haddana aadan jadwalkii deganaa aadan ku shaqaynin waxaa moodaa inuu dhaqan Soomaaliyeed yahay gaar ahaan dowladdii hadda anigu aan qayb ka ahaa cilada ugu weyn oo nahaysata waxay ahayd in aanan marnaba waqtigu uusan bahaynba waxa wax maamula oo dadku ay ku shaqeeyaan waxaad leedahay jadwalkii la dhigay waa maaragtay magac ayuu iska ahaa laakiin jadwal kaleeto hoosta laga wato ayaa jira oo odan adigu aadan ogeyn marka kow cilada koowaad waxaan leeyahay inaanba waqtigu uusan aanan yani waqti la gelin inuu macno leeyahay labo waxaa cilada kaleeto jirta waxay tahay sidii loo prioritize gareyn lahaa ama muhiimadda loo kala siin lahaa shaqooyinka waxyaabahan annaga annagu waxaan ku jirnaa process oo dowlad dhisid ah sidana waxyaabaha kulli waa wada muhiim howlahoo dhan laakiin howluhu haddana way kala muhiimsan yihiin amniga ayaa aas ah amniga waxaa moodaa marka inuusan aanan waqtigii la rabay iyo prioritigii la rabay aanan la gelinin ciladaas waa cilada labaad cilada saddexaad waxay tahay in dad aanan mar walba dalku inta uu soo maray oo process dheer oo dowlad dhisida cabta ayuu kasoo bilowday
inay yani mas-uuliyadaha iyo go-aamada badanaa wax ku leeyihiin marka aysan meesha wax marayaan iyo meesha laga yimid iyo aysan la socon marka saddexdaas ciladooda kusoo koobi lahaa laakiin anigu waxaan dhihi karaa waxba ma qabsoomin oo maanta haddii wax qabsoomeen shirka maanta dhacay wuxuu noqon lahaa shir la isugu yimaado iyada oo maaragtay la qaaraamayo in ciidamadii iyo maaragtay dibudhisidoodii iyo maaragtay tayeyntooda marka waa dib u dhac kale aad leedahay inaan maanta ballantii ahayd in la qaaraamo lacagi la yabaho aanay suuragal noqon oo ay wakti kale dib u dhici doonto wakti kale dib u dhacaysa marka waxaan rabay inaan dib waxyar ugu noqdo heshiiskii la gaaray 16 abriil 2017 heshiis siyaasadeed oo laga gaaray xagga amniga ugu horreeyey oo Soomaaliya ay gaarto u ahaa oo yani aktarada kala duwan oo siyaasadda isku hayay Soomaaliya ama siyaasadda qayb ka ah si guud uga gaareen aniga waxaan qabaa inuu heshiis aad u taariikhi ah oo aad u qiimo badan inuu ahaa heshiiskaas in lagu fara adeego haddii la rabo Soomaaliya in amniga wax laga qabto wixii ka qalqaldan iyo waa laga sixi karaa laakiin in lagu fara adeego oo maaragtay inuu hirgalo oo u shaqeeyo in lagu fara adeego ciidamadii 18 ciidamada lugta kaliya ayeen clarification halkaas inaan ka sameeyo booliiskana 32,000 oo isugu jira federaal iyo kuwa gobolada ayaa iyadana la go'aamiyey oo ahayd qayb muhiimsan oo aysan Soomaalidu xoogga saaraynin dalka Soomaaliya oo kaleeta waxaa xoogga in la saaray tahay booliisinka military waa loo baahan yahay laakiin waxa ugu muhiimsan waa in tayeynta iyo tirada ciidamada booliiska xoogga la saaraa waaya Xuseen waa kugu soo noqon doonaa Jibriil ayaan mar kale aadi doonaa lagu ballan in ciidamada AMISOM ay kuwa Soomaalida ku wareejiyeen ammaanka dalka oo wadanka isaga baxaan tilaabadaasna si rasmi ah loo hirgeliyay sanadka 2018 oo hadda uun maalmo naga xigaan in AMISOM hadda ay baxdo runtii ma aha arrin suuragal ah shirkii London waxyaabihii lagu go'aamiyay waxaa kamid ahaa 1,000 askari oo horeysay inay baxaan December awal waxaa qorshaanahay dalkii baxaya iyo dalkii sii fududeynaya in laga wada hadlo laakiin sidaan xogta ku helayo waxay go'aan ku gaareen wadamada ciidamada Soomaaliya ay ka joogaan in wadan walba tiro isla eg oo ciidamo ah oo si proportional ah ay u baxaan Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda iyo Burundi arrintaas macnaheedu waxa weeye way rabaan wadamadan inay meesha sii joogaan ayaga laftooda haddii marka dowladda Soomaaliya aysan waxba diyaar ka ahayn oo aysan awood ciidan oo ay kula wareegto amnigii dhulka aysan lahayn ciidamada AMISOM inay baxaan wax suuragelaya ma ay ahaan laakiin ama ha dhawaato ama ha fogaato sida qorshaha ku cad ilaa 2027 ka hor in Soomaaliya oo cagaheeda isku taagto ciidankeeda biilata aysan dhici karin wax u eg baa ku qoran dokumentigaas London laakiin haddii la helo talo iyo hoggaan iyo qorshe iyo runtii in si siri oo amniga ganacsigiisa iyo noloshiisa iyo waxbarashadiisa iyo horumarkiisa iyo jiritaankiisa iyo dowladnimadii wax walba waxaa ugu horeeya oo dowladda waajib ka saaran yahay ammaanka weeyaan ammaanka marka haddii aan xil iska saarin oo aan amnigii qorshihiisii xataa iska daafulintiisii aan meel la isla dhigin arrin maaragtay aan wanaagsanayn oo dhibaato ku ah ciddii markaas talada haysa iyo shacabka Soomaaliyeed intaba weeyaan taankeeda hadda suuragal ma aha sida maamul goboleedyada qaarkood u sheegeen kulley waxay noqonaysaa in maaragtay lagu noqdo sida ay heshiis ku gaareen in assessment gal ah howlgal ahaan iyo waxa bixi kara iyo waxa joogi kara in dib loo qiimeeyo dib loo eego qoraysa xuseen maxaa dabcan aad leedahay way qasabtay inaanay fulin ballamihii la galay oo ay ka mid ahaayeen in la bilaabo habkii ay ciidamada AMISOM u bixi lahaayeen inkastoo 1,000 askari ugu horreeyay ay baxayaan bishan dhamaadkeeda
iyo sababta keenaysa in aanay ciidamadii soomaalida weli diyaar u ahayn in ay la wareegaan ammaanka guud ee dalka horta in aan anagu ammaanka dalka ay ciidan soomaaliyeed la wareegaan waa biyo kama dhibcaanka inay soomaalidu ka warwareegto ay tahay soomaaliya amnigeeda ajnabi ah maaragtay ma hayn karaan haddana kaalmo ayay ka yihiin mooye marna dagaalka shabaab lagula jiro amisom guul kama keeni karto amisom waa uun in ay annaga ka dowlad ahaan ay space aan ku shaqayno nasiyaan ayay mandatekoodii tahay waxaadna moodaa hadda inay wakti dheer aada u dheer oo 7 sano kaas aniga waxaan la qabaa jibriil inaysan suuragal ahayn in dowla laakiin in aan ciidankeenii dardar gelino sidii dib loogu dhisi lahaa innagay la sugaysaa mas-uuliyaddeedana dowladda soomaaliya iskale dowladda soomaaliya in ay arrinta xoogga saarto cid allaale ciday kaashanayso hadday shacab ahaan lahayd hadday caalam ahaan lahaydna ay kaashato laakiin ciidamada sanadka soo socda iyo sanadka xiga midna in ay aan diyaar u noqon karno ilama aha baresharo kaleeto ayaa jira oo caalamka ah oo maaragtay ciidamada amisom deeqbixiyayaal ayaa lacagtooda bixiya deeqbixiyaasha laftirkoodu waxay danaynayaan inay lacagtoodii u baaqato laakiin xaqiiqdu waxay tahay in arrinkaasu haddaysan dhaweyn way labadiina waanu ku soo laaban doonaa markan waxaan aadayaa wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa markii uu shirku dhamaaday wariyaheena Cabdinaasir Maxamed Cali waxa uu weydiiyey bal 3 su'aalood oo ay ugu muhiimsanaayeen waxa laga filan kara shirkan iyo ahamiyadda uu leeyahay ammaanka dalka shirkan wuxuu daba socday shirka hore ee London Conference ka dhacay bishii May ee sanadkan shirkaas uu daba socday waa qaybtiisa labaad shirka ujeedada ugu weyn oo ka hadlaya waa ciidamada Soomaaliyeed in tirakoobkooda la soxo in sidoo kale baahida ay u baahan yihiin haddii noqon lahayd aqab tababar iyo wuxuu baahan in laga caawino sidoo kale shirkan waxaa saldhigay sida Amazon lagu wareegi lahaa mustaqbalka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee ciidamada la wareegi lahaa in la diyaarsho kadibna hadii Ilaahay raado 2018 sanadkan waxaan baransan December in kun ay ka baxaan Amazon ay la wareegaan saa ula socotaan jaamacadda ummadda waxaa la wareegay ciidamada booliiska Soomaaliyeed muddo dhowr bil ka hor haddana qaybta dambe ay ka bixaysaa Amazon shirkan intaas wuxuu xambaarsan مدينة كفر قلبي وكل بسوجي دي حلقة عن إنسان هي وقتي أمس في سوالي كفعلي راس وكل ورون هذانا وحلو باهين يعني الصومال إسكت شتو إن عندنا توبر لسي أجب كي باهين لودا ما يشتروا أميسون توماس نجوت وذكر وانو كم هتسيهين وانو باهنتا إن وانو باهنا إننا كالميان هذانا لقى مرما وإن مالنا يدعي عيدو كودنا يدفع عن ذلك wasiirka amniga Soomaaliya ayuu kaasi ahaa Jibriil dabcan marar badan ayaa shirar la isugu yimid Soomaaliyana shirarka maslaxadeeda guud looga hadlaya ayaa mararka qaar keena in waqti dheer ay qaataan oo marba bila kadib ama sanado kadib shir la isugu yimaado haddana iyada oo aan shirarkaasi wixii lagu ballamay la fulin ay shirar kala dhacaan sidaana waqti badan u kulmo markaad eegto xaaladda guud ee dalka iyo sida amnigu uu muhiim ugu yahay in dalkan sidoo kale ay ka dhacaan doorashooyin xor ah maxaan filan karnaa waqtiyada soo socda runtii sida kulley heshiisku ahaa 2021 in la gaaro doorashooyin dalka ka dhaca ayaa qorshe u yahay documentigaas ama heshiiskaas amniga
london ka soo baxay tusaale ahaan waxaa lagu soo heshiiyey 2008 waa laga bilaabo in la diyaariyo habkii lagu sugi lahaa amniga shacabka soomaaliyeed ee codayn doona 3 sano kadib waa arrimo isku garab furan oo siyaasad iyo amni iyo maaragtay u baahan wax badan oo hogaamin iyo dhaqaalaba ah waxaanu kolley filan karnaa siday hadda wax yihiin mar walba oo Soomaaliya wax maaragtay lala qabanayo waxaa beesha caalamku ay isku daydaa in target sare ama inta ay Soomaalidu kari karto in ka badan ay tiraahdo hala sameeyo tusaale ahaan 2016 qorshe wuxuu ahaa qof iyo cod in la codeeyo waa laga hoos dhacay qorshe wuxuu ahaa in 2018 laga bilaabo Amazon lagala wareega amniga kulley wax hadda sidoo saaxiibka Xuseen uu sheegay dhici karaya ma aha marka waxaan isleeyahay weli dawladda Soomaaliyeed iyo weli kama soo maaragtay dhamaanin lamana helin nidaam ama hoggaan runtii kaafiya baahidii ummadda u qabtay in la jiheeyo la tuso meesha loo socdo inay tahay meesha la joogo meel ka wanaagsan in dawladnimadu ka wanaagsan tahay dhibaatooyinkan lagu dhex jiray muddadan 20 sano ah qaabka ay uga wanaagsan tahay iyo waxa dadkan tusaale ahaan hadda riboodyada soo baxay waxay sheegayaan al-shabaab waxyaabaha aysan la tegaynin oo looga adkaanin inay ka mid tahay shacabkii Soomaaliyeed ee deganaa dhulka miyiga ah intiisa badan inay ku qanacsan yihiinba maaragtay siday ula shaqeeyaan siday ula dhaqmaan halka ay dawladdii iyo ciidamadeeda cabsi ka qabaan inay maaragtay ama u kala eexato ama qabyaalad isticmaasho ama musuqmaasuq iyo baad iyo dhibaato u geysato marka ciidamo anshax leh waxay ka bilaaban karaan in horta madaxdii dawladda madaxweynihii ra'iisul wasaarihii wasiiradii ay muujiyaan inay ayaga tusaale fiican yihiin oo musuq maran yihiin oo horokac diyaar u yihiin oo dadka inay jiheeyaan diyaar u yihiin taas jibriil wax uun sawma muuqdaan markaad eegto arrimahaasi oo dhan uun isbeddel sawma muuqdo runtii way muuqdaan oo sidii hore si yara dhaantay u yara eg tahay laakiin weli wax lagu caddeeyo maaragtay ama hawl aan la qaban jirin oo badan oo la qabtay oo shacabka Soomaaliyeed adeeg u gaaray ma muuqdo macnaha afka waxa laga yiraahdo waxa ka weyn waxa runtii dhacaya hay'adihii dawliga ahaa sida bangiga dhexe sidii uu ahaa si ka bedelan hadda ma aha ciidamadii iyo mushaharadoodii weli calaamad su'aal badan baa ka taagan حتى تراكوبك ciidamada sidii wasiirka amniga aad ka maqlaysay tirada rasmiga ah ciidamada Soomaaliya حتى liiskooda lama hayo iyo diiwaankoodii inta yihiin marka wali ma dhawa hawl fara badan baahan in la qabto in loo xigto baahan madaxdeena ka go'da ayaa laga doonaya inay muujiyaan inay tasbiixin hawsha ayada Xuseen ugu dambeyn maxaan ka filan karnaa shirkan ammaanka Soomaaliya looga hadlayo waxay soo saareen ba maaragtay qoraalkii iyo communique waa soo baxay waa ballan kala la dhigtay marka wixii soo bixi lahaa waa qoran yihiin 3 qodob ugu muhiimsan intii shirarkii ka horreeyay qornayd ayaa uu soo qoray oo ahayd koowaad hirgelinta national security architecture-ka dardargelinta sidii ciidamada Amazon ay dawladda Soomaaliyeed mara wareegi lahayd iyo sii waridda caalamka taageerada u hayo tayeynta ciidamada Soomaaliya laakiin aniga waxaan leeyahay waa in shaqo la qabto shirkan shir baa xigi doona shirkan waa aniga waxaan leeyahay gaadis ayuu ku yimid xilligiisina ma imaan maaragtay waxna lama soo qaban shirka soo socda oo isleeyahay 6 bilood kadib ayuu dhici doonaa in uusan waqti kala lumin oo hawshii taalay oo heshiisyadii la heshiiyey shaqo laga qabto markaas waxaan cabiri karnaa in aan waxyaabaha laga hadlayo sida Amazon in maaragtay lagala wareegi karo tayeynta ciidamada ajendayaasha yaallo dhan markaas ayaa la cabiri karaa loo samayn karaa laakiin hadda waxaa taalla shaqadii oonan qabsoomin iyo aan leenahay gaabis jibriil filashadaada gabagabada shirkan oo maalinta berri ah ku eg inkastoo si hordhaca ilaa 3 qodob loo taabtay
sida xuseenna uu inoo sheegay maxaad is leedahay oo dheeraada waa laga filan karaa maxayse tahay in laga barto arrimahan waa sidaas uu sheegay xuseen 5 qodob ayaa kasoo bixi doonta kulley shirka oo uu soo baxayba documentigii shirka looga hadlayay waxaa ugu weyn oo wax si run ah wax uga qabsoomayaan hadda ah runtii loona baahan yahay laakiin dowladdana laga rabo inay shaqo kala qabato waa amisom in operationskeedii hawsheedii la dardar geliyo oo la xoojiyo oo taageeradeedii lasii wado waxaa kale oo kasoo bixi doona maaragtay in la horumariyo hay-adaha amniga dowladda ama ha laga dhigo maaragtay kuwa ka maran musuqa ama ha la diiwaan geliyo ciidamadii heer gobol iyo heer federaalba waxaa laga hadlay faafinta iyo baahinta awoodda dowladda iyo shaqada dowladda waxaa laga wada hadlay rule of law iyo justiceka iyo cadaaladda waxyaabo fara badan oo suuro gelin lahaa in ciidamada Soomaaliyeed ay hirgalaan oo shaqeeyaan oo musuqu yaraado oo dowladnimadu xaga dhigato ayaa laga hadlay laakiin sidaas waa un hadalkii la oran jiray u badanaya waxaan haddii dowladdii aysan shaqo qabanin oo aysan la imaanin qorshe ay caalamka ula tagto tiraahdo sidan aan wax u rabnaa sidan aan wax u haysanaa maamulkeena iyo nidaamkeena iyo public finance managementgeenu sidan uu yahay halkaasay wixii taageera inoo marayaan oo heshiis lagu yahay oo maamulada gobolada iyo dowladda federaalku heshiis ku yihiin haddaan la helin wixii hadal un in la isugu soo noqnoqday noqonaysaa ugu dambeyn xuseen dhinacaaga waa mahadsan tahay aniga waxaan leeyahay mar labaadaan ku celinayaa in shaqada maaragtay la focus gareeyo in siyaasaadka aan waxba taraynin aan waqti lagu lumin oo maaragtay howlaha dadku shacabku ay dowladda weyn batay oo amniga ugu horeeyo mas-uuliyad la iska saaro sidoo kaleeto beesha caalamka hadday ahaan lahayd ciidamada afrikaanka ah oo nala jooga iyo kuwa deeqda bixinaya intaba maaragtay wax oo abad nala joogayana ma aha wax hawsheenna qaban kara dad hawsheenna qaban karana ma aha marka inaan isku tashano oo isku tashi xoogga saarno oo aan waqtiga ku xisaabtanno oo aan waxyaabaha kaloo maalayacniga ah aan waqtiga lagu lumin laakiin xuseen labadiinaba haddaan su-aasha ugu dambeysa raacso idin weydiiyo si wada jira dowladdu dabcan iyo madaxduba xilligii ay bilaabeen hawsha ad ogtihiin inay mushaaraadkii ay dadka shaqaalihii dowladda ay joogto hadda u helaan dowladdu ay isku dayeyso in tillaabooyin kale ay qaado ay ka mid yihiin amnigii wax ka qabato maxaabiistii soomaalida ku xirnaa qurbaha dib loo soo celiyo la wanaajiyo siyaasadihii guud ee dibadda iyo gudaha intaba haddii ay mucaarado yimaadaan oo dowladdii aad ogtihiin in maamul goboleedyada ay khilaaf uu ka yimid oo lagu qabsaday arrintii khaliijka culaysyo gudaha dowladdu ay la kulmayso oo siyaasi ah sow arrimahaasi caqabad kuma noqonayaan in madaxda dowladdu ay fuliyaan waajibaadkii loo egmaday si guud labadiina waxaan ku hormarayaa xuseen waa sax horta dowlad walba caqabad la-aan maaha oo hadda anigu ma dhahayo maaragtay caqabad environmentkii ku shaqaynayaan waa environment caqabad free ah laakiin iyada laga rabaa inay xasiloonida siyaasadda ka shaqayso iyaday mas-uuliyaddeeda tahay cidda mucaaradaysa iyaday tahay inay la hadasho inay heshiis ka raadiso inay mar walba environmentka ay qurxiso waxa kaloo dhan oo yaalla oo caqabadahana iyadaa mas-uuliyadda iskale that's why iyada aan ku celcelinayno hawsha leedahay marka waxyaabaha kaleeto ood sheegtay oo aad tiri waa la qabtay waxyaaba waa run waxna waxaan leeyahay kabadbadis iyo cosmetic ayaa ku jira laakiin eedu mar walba dowladda ayadaa mas-uuliyadda haysa cid kaloo la haysa ma jirto iyadaa laga rabaa marka taasoo dhan u babarka dhigto waay jibriil isla kelmaddaas ugu dambeysa su-aasha waxa weeye su-aashaas sidee arrintan maaragta dowladda waa run caqabado fara badanna way wajahayeen wax badan oo wanaagana way samaysay oo lama xaqiri karo wixii wanaagaha ay samaysay laakiin aniga waxay ila tahay dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxay ka filayeen dowladdan waxa hadda socda wax aad uga weyn
wax aad uga wanaagsan sida hadda wax yihiin oo shirarkan caalamka oo dhammaadka aan lahayn iyo simaatinkan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waa arrin fiicanna waa tahay dhinac marka laga eego laakiin arrin sharciyad ku salaysan ma ay aha dastuurka federaalka ah oo dowladda Soomaaliya ay ku dhaaratay inay meel marinayso qodobkiisa 130 tusaale ahaan wuxuu ka hadlayaa samaynta nidaamka ciidamada iyo dhismahooda waa in sharci ay ka soo saaraan labada aqal ee baarlamaanka dabcan arrintan ayada ah baarlamaan iyo aqal sare midna talo ugama jiro maamul goboleedyo iyo beel caalamka habta isu imanaya fariisanaya marka jihadii la rabay jiha aan ahayn haddii lagu socdo oo wixii aysan sharciyad fadhida ku salaysnayn waxaa dhacaysa nin walba inuu dhinac wax u boodo maalinba maamul goboleed baa diiday la yiraahdo laakiin wixii haddii la sharciyeeyo baarlamaanka iyo aqalka sare waxay ka kooban yihiin maamul goboleedyadii waxay ka kooban yihiin beelihii shacabka Soomaaliyeed ayagaas in la faro oo taladii laga qaybgeliyo oo doodii meesha la dhigo oo lagu shaqeeyo baa la lahaa oo Soomaaliya wax ka soo fulay oo sharci ah la meel mariyo oo caalamka loola tago laakiin hadda sida wax la yeelayo waxba Soomaaliya loola yimaadaa wixii lala yimid iyo qaabkii la keenay bay hay'adda wax hadda sidaas Xuseen u sheegay qorshe ah oo lacagaysan oo sidana wax u rabnaa ah oo la keenay mana iman karo ilaa ay laga qaybgeliyo hay'adihii sharci dejinta iyo sida labada aqal ee baarlamaanka way aad baad u mahadsantihiin labadiina kuwaasi waxay kala ahaayeen Jibriilow Maxamed oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga jaamacadda Ohio qadka Skype-ka Mareykanka toos ugu jiray iyo Xuseen Macalin Maxamuud oo la taliyay amniga soo noqday arrimaha ammaanka dalkana aad ula socda oo telefoonka Muqdisho ku jiray aad baad u mahadsantihiin labadiinaba gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay ugu dambeyn xuutiyiinta waddanka Yemen ayaa dilay madaxweynihii hore ee waddankaasi Yemen Cali Cabdalla Saalax madaxweynaha ayaana xilli uu ka baxsanayay dagaalada xoogga leh ee isaga xoogga taageersan iyo xuutiyiinta ku dhex maraya magaalada Sanca waxaa toogtay maleeshiya ka tirsan xoogga xuutiyiinta ee ka dagaalamaya waddankaasi Yemen waxaana la soo dhigay baraha bulshada madaxweynihii hore ee waddankaasi Cali Cabdalla Saalax kaasi oo ay wadaan xoogga xuutiyiinta qayb ka mid ah waxaana wali dagaallo ay ka socdaan qayb ka mid ah magaalada Sanca inkastoo inta badan magaalada ay sheegeen inay gacanta ku hayaan xoogga xuutiyiinta oo dagaal ku bilaabay kooxaha taabacsan madaxweynihii hore ee waddankaasi Yemen Cali Cabdalla Saalax kadib markii uu ku dhawaaqay in uu soo dhaweynayo wada hadallo la galo dowladda waddanka Sacuudiga oo hogaaminaysa xulafada dagaalka kula jira xuutiyiinta waddankaasi Yemen waxa la isweydiinayaa waxa xigi doona dhimashada Cali Cabdalla Saalax iyadoona madaxweynihii hore uu ka soo jeeday mid ka mid ah qabaa'ilka ugu waaweyn ee waddankaasi Yemen guud ahaan inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii dabagalka wararka caawa Khaalid Maki ayaa farsamada gacan iga siiyay tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo